waxaa maanta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ka dhacday xaflad lagu saarayay calanka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiiro, ilmaawadiin, salaadiin, odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka iyo ergooyinka maamul samaynta saddexda gobol ee Koonfurta Soomaaliya. Waxaa goobta xafladu ka dhacaysay lagu saarayay calanka saddexda gobol Koonfur Galbeed isla markaana oo goobta loogu tumay muusiga calanka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ergada maamul samaynta saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. isteedkan saddeed gobol koonfur Soomaaliya eediyadaan ka faraxsana maanta farxada walaana falay in ku sheego korno ilaahayna suurta geliya maxad shukrulle wali fadaane dadkan dhaladii goboladan koonfur galbeed inay calansho difaacdaan murug iyo maal iyo maskanba ka difaacdaan calansho calankan la saari la yacaan ya in sheegan ciidamada federaalka iyo ciidamada baylahay goboleedka wali ku codsadaan inay difaacaan calankaas. Sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay mid ka mid ah odayaasha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Koonfur Galbeed ee maanta taagnay farxad ilaahay maaragtay aad baan u faraxsanahay ilaahay baan mutaysay inaan taagno maanta calankii waana u garab galay waa gudoomiyaha waa tiishay calanku wuxuu u baahan yahay difaac anoo ku hadlayo magaca odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed waxaan gudoomiyaha warkiisa aan u jawaab u ballan qaadaa hortiisa u ballan qaadayna calankeeni inaan difaacno maskax iyo maal iyo muruq iyo ciidan inaan ku difaacno u ballan qaadayna. Si kastaba ha ahaatee calanka maanta lagu caleema saarayay xarunta shirka maamul samaynta saddexda gobol ayaa waxa uu ahaa mid aan caadi ahayn waxaana ku soo dhamaatay jawi farxadeed. Baydhabo News, Amaan Dhoorey, Abdulqaadir Xasan.